ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa guuli waaweyn ka gaaray dagaal ay ku soo qaadeen ciidamada sheeganaya daraawishta Jubbaland oo garab ka helay dawladda Kenya. dagaalkaasi oo socday saacado degmada beledxaawo ee gobolka Gado ayaa waxay gudaha u galeen ciidamada xoogga qeybahooda kala duwan magaalada Mandheera. waxa ay la wareegeen dhammaan goobihii ay dagaalka ka soo qaadeen ciidamada daraawishta Jubbaland isla markaana garab ka helayay ciidanka Kenya. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa dib ahaan gacanta ku dhigay goobihii ay fariisimaha u hayeen ciidamada joogay dhanka Kenya ee xuduudda. ciidanka ayaa waxa ay dagaal ku soo qabsadeen 3 baabuur oo tignika ah halka 2 kalena ay ku gubeen. waxa aag ugu horeeyay jiidda dagaalka ka socday joogay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado ahna madaxa amniga iyo siyaasadda gobolka Mudane Cusmaan Nuux Xaaji Macalimo iyo taliyaha xasilinta gobolka Gado Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan Bakaalkooke iyo saraakiisha kale ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qeybahooda kala duwan iyo dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Gado oo ka qayb qaatay doorkooda dagaalka geesinimada ah ay maanta muujiyeen. ugu horeyntii waxaa goobta fagaaraha aargada ee degmada beledxaawo kula hadlay shacabka reer beledxaawo ayaguna doorkooda ka qayb qaatay dagaalkaani. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado ahna madaxa amniga iyo siyaasadda Mudane Cusmaan Nuux Xaaji Macalimo iyo taliyaha xasilinta gobolka Gado Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan Bakaalkooke oo u mahadceliyay shacabka reer beledxaawo oo u muujiyay dawladooda hiil iyo garab istaag. بأفر بريء حبط من سوريا حبط ماله. صاروا عدوكتين عيد حوك دك الصوماليين إيش عارف الصوماليين حبط من سوريا. عدوكتين دك السجال كسر الحكومي ونمتى تقول الحكومي ما حبط بالله. وعلاي حكومي عيد حوك دك الصوماليين إنسان جماعة كلها من حبط مكلين. ما أنت الثالث كي قعدتها كسوريا. لما كم يدوّن ولا ولا قوي متكم يدوّن ولا قوي لما قعدت قوتنا واحد هو بيتم أي مكانه كوكر عين ودوتي نب مكانه كنا حيا معها كيو dhulkeedu uma socono dawlad daris aan nahay ayaga aanu u soo xadgudbay waana la xaliyay arintii ay ahayd oo si nabadgelyo ku dhamaatay guriina nabad ku taga nabad ku seexda wax dambe oo cadow ka baqdaana ma jiro insha Allah marka isdajiya guriina ku noqda xoogga ciidanka xuduudda aan ku simi doonaa aan anagu leenahay waad garanaysaan Kenya ayada nimanka marti gelisay ayada u soo gudbisay xadkayga wixii xadkayga ku soo xadgudbayna shaqaanu ka qabanay aad u maasantiin saa u difaacaysaan dalkiina waa ku maasantiin dhalinyaro عبد النور شبلي حسن عبد النور شكر ورباهين تقرنك دقمة بلد حاوي قبل كجدو